Hallow, waad salaamantiin asxaabta ku xiran janaalkeena sida aad inooga sugaysaan muuqaalada. Maanta waxaan ka hadlaynaa maqaal aad iyo aad u muhiim ah, kaasoo ah sidee u dhimi kartaa miisaanka ama baruurta saaran jirkaaga adigoona aadin wax jiim ah. Dad badan ayaa aaminsan in aan la dhimi karin miisaanka iyadoona la aadin jiim ama goobaha lagu jimicsado. Isdaji walaal, aniga kuu sheegaya farsamooyin fudud oo aad si dhaqsi ah ugu dhimi karto miisaanka jirkaaga saaran. Horta marka hore aamin inaad wax walba samayn kartid. Miisaankan jirkaaga adigaa saaray oo sabab u ah waayo waxaad cuntay cunnooyin fara badan oo aan faa'iido u lahayn jirkaaga. Sidaas si la mid ah ayaad u ridi kartaa miisaankaana. Miisaanka oo bata waxaan ognahay inay ku soo dugaalaan cudurro fara badan sida wadna xanuun, kaliya xanuun, lafa xanuun, kala goys xanuun, xitaa cudurro nafsaani ah sida kalsooni la'aanta. Waxaan halkan kugu soo bandhigayaa 5 qodob oo aad ku dhimi karto miisaankaaga adigoona aadin wax jiim ah. Qodobka koobaad, cabidda biyo fara badan ama teedka ama baahida cunto iyo haraadku waa kuwa hal meel oo maskaxda ka yimaada. Waxaa dhacda inaad u malayso inay gaajo ku hayso adigoo u baahan galaas biyaha kaliya inaad cabto. Markaad cabto biyo, durbadiiba waxaad dareemaysaa dhereg. Dhinaca kale, biyaha oo aad cabtid ugu yaraan 8 galaas maalinkii waxay qayb weyn ka qaataan habdhis dheefshiid fiican, kaasoo kaa caawinaya inaad lumiso miisaan fara badan. Intaad cunto badan cuni lahayd, cab biyo fara badan. Sidoo kale cun qudaarta fudud sida mooska, afukaadhada, limbambeelada, qudaarta cagaaran oo dhan. Waxaa la sheegay in limbambeelada ay yarayso miisaanka faraha badan. Markaad cunto ama aad cabto biyaheeda, waxaad dareemaysaa dhereg fara badan, taasoo sabab u noqonaysa inaadan wax badan cunin. Qodobka labaad, xadid cuntada aad cunayso. Caadi ahaan khibrada miisaanka waxay leeyihiin xeer guud oo sheegaya in 75% miisaanka lagu dhimi karo xagga cuntada oo wax laga bedelo. 25 soo hartayna lagu sameeyo jimicsi iyo orod. 700 oo daraasad oo la sameeyay waxay sheegeen in arrinta ugu dhaqsaha badan ee miisaan lagu dhimi karo inay tahay xagga cuntada oo wax laga bedelo. Sidoo kale inaad samayso socod fara badan inta aadan seexan ka hor habeenkii. Taasina waxay kaa saacidaysaa inaad adigoo calooshaadu khafiif tahay aad seexato. Laakiin haddii aad seexato adigoo calooshu kaa korayso, waxaad diyaar u tahay inuu miisaan daaqada kaa soo galo, subaxiina aad dareentid wax la yiraahdo caajis. Sidoo kale waa inaad iska yaraysaa cuntooyinka uu ku badan yahay faatka sida bariiska, baastada, kuwaasoo dhammaan ah cuntooyinka aadka looga isticmaalo Soomaaliya. Meesha aad ka cuni jirtay bariiska iyo baastada, u bedel cunooyinka leh baalka sida galleyda, misagada, salbukada iyo wixii la mid ah. Qodobka saddexaad, ha dhayalsan hurdada. Hadduu jadwalkaagu ahaa inaad subaxii waqti badan jiifto, habeenkiina seexato waqti dambe, taas waa laga daba yimid oo waxaa beeniyey Michael Beras oo ah aqoon-yahan haysta shahaadada PhD. Wuxuuna sheegay in hurda la'aanta miisaan badan dadka ku fuulo. Dr. Beras wuxuu buugiisa ku qoray in 30 daqiiqo oo aad hurda habeenkii qasaariso inay kugu kordhinayso miisaan xaddigiisu aad u badan yahay. Sidaa darteed waa inaad seexataa hurdo kugu filan habeenkii si aad dhaqso ugu kacdo subaxii oo aad u qabsato hawshaada nolol maalmeedka ah. Qodobka afraad, ha u cunin si jees ah. Cuntada loo yaqaan snacking ama cuntada fudfudud ee saliidda ama dufanku ku badan yahay kaliya uma darna caafimaadka guud ee waxay musiibo ku tahay miisaan korkaaga ku siyaada. Haddaba waxaa jirto cunto badan oo aad iska cunto adigoon u qabin inaad waxba cunin, sida cuntada aad ku cunayso markaad TV-ga daawanayso, cuntada aad goobaha shaaha ku cunto, cuntada aad cunto markaad gaariga wadayso. Kuwaasi oo dhan waa cuntooyin aad khatar u ah sida sambuuska, nafaqada, waxyaalahan lagu gado goobaha la iskugu yimaado. Iska ilaali, iyaduna waa khatar. Qodobka shanaad, 45 daqiiqo lugu maalin kasta. Caado ka dhiga inaad maalin kasta lugayso 45 daqiiqo. Haddii aad caado ka dhigato socodkan, waxaa hubaala inuu ku gaarsiinayo natiijo wanaagsan. Baaritaano la sameeyay waxay caddaynayaan inay ka dhacaan qofka socda ugu yaraan 10 kilogram adigoon ka fikirin cuntada aad cunayso, wax siyaado ahna aan samayn. Kaliya socodkan caadayso. Sidoo kale adeegso khudradda cagaaran mar walba cuntada ku cun. Khudaarta cagaaran waxay qayb weyn ka qaataan inaad dhinto miisaankaaga waliba si fudud. Ogowna, wax walba adigay kaa go'aan. Haddii aadan go'aan qaadan, waxba kuu suurtageli mahayaan. Ku kalsoonow naftaada. Marka hore mid ogow, jirkaan adigaa iska leh, adigaana caatayn karo, adigaana caylin karo. Intaas ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijkeenna. Fadlan channelka gaarsii asxaabtaada. Waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin oo idin dhahaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.